Habeen qabow oo mugdi ah, saacadu markay ku aadanay 8 saac oo habeenimo, ayaa nin dhalinyaro iyo aabihiis waxay aadeen maqaaxi meel cidla ku taala, ayagoo markaas sugaya dalabkooda in laga qaado. Odayga weyn, kaasoo ahaa mid markaasi xusuustiisa sii yaraanayso, ayaa wuxuu ku qasbay wiilkiisa inuu u kaxeeyo maqaaxida. Markaasi wiilkii uu ka yeelay, ugu yaraan odaga saan wuu ku farxi doonaa, hadhowna wuxuu awoodi doonaa si nabada inuu u seexdo. Waiterkii ayaa u yimid, asagoo ku soo dhaweeyay maqaaxida, kadibna wuxuu weydiiyey inay diyaar u yihiin inay wax dalbadaan, ayagana haa ayay dhaheen. Wuxuu kula dardaarmay inay dalbadaan burgerka, asagoo dhahay waa midka ugu wanaagsan, wuxuuna ku dhoola-cadeyn cabsi gelisay. Way ka diideen, waxayna dalbadeen cuntadii ay meesha u yimaadeen. Odaygii weynaa wuxuu dalbaday maraq, wiilkiina wuxuu dalbaday qaxwe. Markii uu tagay, wiilka wuxuu weydiiyey aabihiis inuu u egyahay waiterkan inay meel ku arkeen. Odaga wuxuu dhahay si aan la yaab lahayn maya, wuxuuna weydiiyey sababta. Wiilkii wuxuu aabihiis u sheegay inuu u malaynayo waiterka inuu si saayid ugu egyahay inuu ku arko TV-ga oo dilaa ah oo laga shaacinayay degmo kale. Aabaha hadalkaasi muu bogin, wuxuuna u sheegay wiilkiisa inuu ku aamuso, hadalkiina wuu bedelay. Wiilkii xoogaa kadib wuxuu u sheegay aabihii inuu suuliga aadi doono, daqiiqad kadibna uu soo laabanayo. Aabihii xoogaa badan ayuu wiilkiisa sugayay, ugu yaraan 15 daqiiqo ayaa soo dhaaftay, welina wiilkiisii ma uusan soo laaban. Sidoo kale, waiterkii ma uusan arkaynin meeyay wiilkiisii, sidoo kalena meeyay maraqiisii. Markii uu su'aalahaas isweydiiyey, ayaa waxaa u yimid waiterkii oo maraqii u wado. Markaasna wuxuu dhahay saayid ayaa u daahday, wuxuuna ku dhahay naga raali noqo mudane, dhibaatooyin ayaa jikada ka jira. Markaasna wuxuu weydiiyey odagii meeyay wiilkaygii. Wiilkaagii inuusan meelaha ka fogeen ayaan hubaa, waxaana dareemayaa mar saa'id u dhow inaad la kulmi doontid. Kadibna wuxuu ku dhoola-cadeyn qof kastoo arka cabsi gelin lahayd. Odagii wuxuu ku jeestay maraqiisii, asagoo raba inuu cabo. Markii uu qaandada darayna, isla markii waxaa soo raacay wax kale, waxaasoo ahaa ookiyaale. Maxaa weeye waxaan ayuu ku fakaray, isla markiina wuxuu dareemay cabsi saa'ida markii uu gartay qofka ookiyaalahan leh inuu yahay wiilkiisii. Odaygii wuxuu dib u fiishay waiterkii, wuxuuna dareemay xanaaq saa'ida markii uu arkay waiterkii oo weli dhoola-cadeynaya. Markaasi wuxuu soo qaatay mindi yar oo miiska saarneyd, kadibna wuxuu gashay waiterkii asagoo si toos ah uga taagaya wadnaha. Isla markiiba si saa'id ayuu ugu dhig baxay dhulkii, waana uu dhintay. Isla daqiiqadaas wiilkiisa ayaa ka soo baxay jikada isagoo ku qaylinaya aabihiis, maya, maxaad samaysay? Barankii un ayaan kugu sameynaynay. Odagii wuu aamini waayey waxa uu maqlayo, barankii alla ilaahayow. Markaas ayuu bilaabay inuu fakaro oo wuxuu sameeyey gartay, wuxuu dilay qof. Odagii wiilkiisa waxay go'aansadeen inay si degdeg ah wax u qabtaan oo geliyaan meydka markaasi talaagada lagu rido hilibka. Kadibna waxay habeyn doonaan dhulka, markaasna way ka tegi doonaan meesha. Waxay ahayd qorshe wanaagsan, qof aragtay ma jirto, cid meesha joogtana ma jirto. Waxayna ahayd taasi sida ay ku fakarayeen un. Markii albaabka fureen, waxay arkeen saayid ay uga nixiyey, heer ay jeclaadeen inay markaasi meyd ahaayeen. Waxay arkeen waiterka walaalkiisa ka weyn, kaasoo aad u cabsi badnaa, hilibna u sameynaya burgerka, hilibka ugu wanaagsan magaalada sida la sheegayay. Laakiin taasi ma ahayn arrinay iyagu ogaan doonaan.